Hey, y'all, come look at this. haddaan dawladdu qaban annagaa qabanayn geedka timirka aan u fadhiisanayaa wallahi hal maalin magaala laga saaraya dawladaha marka maanta dhahayo muxuu ahaayay transparency jiro wanaaga jiro oo horumar maxaan ku raad la gaaray fidnay ka talinayaan aan leenahay dawladaha saas ka shaqeynayo lacagta ay sheegayaanna waa mid Soomaaliya hoojinaysa mid Soomaaliya wax u talaysan ma waxaan ka afeefanayaa marka aan taariikhda iyo research ka hadlayno dad gaar ah uma jeedo ninkii illa shub ninkii lugla shub ninkii gacan la shub dhaqaaji had ha cariirin ilaa way lugla waa laga marraba marka waxaan leenahay kafa war ku joogsada meeshii waxaan leenahay stop خط أحمر يا أرنتا we never accept that never ever والله ثم والله هدسن جوجين وبحنا لن نقبل ولن نقبل waxa dadka qaarkiis loola dhaqanayo cid noola timaado awood ma u leeyahay inaan garoonkan ka celino Soomaaliya karno ya Allahumma darajo kasta ha sheegto qaab awoodeed haddaan dareerno waxaan u malaynayaa waxaan wadano ma ahan bakoorooyin ma aha soo saas ma kalama aniga dastuurka Soomaaliya waxa ku taal qofka marka la doorto waqtigiisu waa 4 sano madaxweyne marka la doorto waa 4 sano hadda 2 sano joogay labadii kale ay iga gooyo talo dadka Soomaaliyeed waan ka raali gelinayaa inuu weyn ciidamadu ka dhacda khaladkuna waa la ismoodsin karaa igu tuurade markii hore ciidamada waa ay igu tuurteene igu tuura anigu siyaasad dambena kuma jiro ballan waxaan idinku qaadayaa meel kastoo Soomaali joogto inaan idinku imaado waan idinka raali gelinayaa I love Muqdisho xalna waan siinay وفريستي فرماته وفريستي فرماته وفريستي كرب كان لقطوله كعين كري واي عبد الكريم aragaaga marka saa loo arko waxa tahay nin aad u aamusan laakiin nin aad u xigmad badan Soma hadee runtaada marka dabeecadaha lagu eego oo cabdigiisa adigu u taqaanid iyo sida dadku ku yaqaanaan way kala bedelan yihiin Kismaayo markaan soo galeynay waxaan wadanay meed iyo dhaawac nin markaa Starbucks fadhiyo kafee cabay oo aan garanaynin waxa lala soo maray iyo waxa jiray inuu maanta ilaa wadanka oo dhan raad baan dib ugu celinaya waa ayaan daro dawlad yar baan ahay kursigaygaasaan haystaa meeshaan doonaan la mari heshiiskaan doonaan soo gelaya meeshaan doonaan xoolo u doonanaya islaan uunsan jirin hadday uunsato meel ay ka guban jirin ayay ka gubataa waxaan runta u sheegayaa hadalka uu ka hadlay gudoomiye su'aashayda ha ka jawaab madaxweynuhu meel kalu marayaa hadal mareed mudane hadalka mareed aad weydiisay waad aamusaysaa nidaamka dawladnimada haddaadan raacin mas'uuliyaddeeda adaa qaadi doona dawladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuun lagu addimo ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayey mana ahin nin loo sheegi karo danta iyo dowga dawladdan ay dooratay in aan ku dhaqdo magaaladan 2009 dadkii joogay inta ka baxeen ay ceelasha biyaha tageen maxaa ciidamada Itoobiyaana soo galay waxay go'aansadeen inay bixiyaan ilmahooda waxay geysteen ceelasha biyaha magaaladan waxay kula dagaalameen ciidamada Itoobiyaanka ilaa markii ugu dambeysay ku guuleysteen inay ka saaraan waxaan
waxaan rabaa inaan u sheego madaxweynaha sharafta leh tiimkiisa dadkan weli ceelasha biyaha waa bannaanta waan aadi karaan yaan lagu kalifin shacabka beledkan joogo oo beledkan ku nool inay dhib ka